وانك قول مدحوين نمد دونية من مواطنة oo sidiisa ahaa ragii soo halgamay kamida saraakiishii sarsaraha oo isaga ciidan aan ka sareeyay dhulku ku haystay way haddaan dib horta ugu noqdo waxaan ilaabay Muuse bixi waligii dhulku muu yeelan Hargeysa aabihiiba hal guri kula hab galchana isagoo kabtana malaawi silowsan yahay waan xasuusinayaa oo ina shield idar la socdo isna kabtana ay odagii Xaashim Muuse 88 jirka ahaa meeyarka duq caasimada uu nool yahay ee uu xiray bariga dhaweeyay 3 bilood isaga u xidhnaa ayuu yimid وكابتن مركا ودول بويديستي ويرو وحول لبضان المالسي بركدن بيح هرقيسا أفر سكدود باكوسي يصدع رزارب واحد مظهر صنينون عدنا بالسين ينون الأقبلين مدافع ده شينا قرنا يقاش نصر الشينا مدافع ده دفاع الكاد كنيت مركا الله ما أقبلين رصاصة كنا عيسى إني فرد كيدي وحو قادن تدكو يودو وعدان باحد سكد داسان إساقا إيه إنا الشيلو كالبو يقول كيقول ريورت أنا هرقيسا كسيي ما أنت أنا كنت بقول يا لحظة بقولك بدن بكلية إيه أنت هسوا أقل أو لسان يا سيء السوق محمد عصو يروح حيران عصون أقاون أو حلالو حيستأجرين بسوقلا هبين مو شقين بقى مش تنا كمون نقول ميلو مو شقتين حلقوك كيانا إلا أنا بس هي اللي بدي بقول أوريه إن الشيء اللي ما سي سجن الله سي إن الشيء لا قلبك لسان السجن الله بدي كلا إنما هو أديروي الماديريين بعد تجرم مركي يقول تبيسي ودتشيء السجن marka Muuse saasaan horta dhul marka hore waxba walahay hadaan soo noqdo ninkaan sheegay mujaahidka gaashanaal sar Ismaan Dacas baa layra dhowr iyo 80kii anagoo joogna beertii dawladdu geed dibla ku lahayd laga siiyay uu wax ku beeray oo uu sheegay TV-yada ka hadlay oo uu sheegay khudradda ninkii uu iibin jiray waliba anaga reerkayga khaas ah magaciisa sheego sataan way duubanta waa la soo deyn doonaa beertii sidaa ahayd Muuse ana xoreystay buu ilaa maanta uu haystaa madaxweynaha dadka uu ka doonayay habar jeclay Muuse waa ka waa Ismaan Dacas ninka beertiisii geed deeble ilaa maanta xoog ku haysta bal ninka isaaqan xoog kaga haysta ama daarado soo sheeg dadkii daaroodka aqaladooda ka tagan baabeen meel loo celiya si walba yilido dad san hore ugu sheegay dad iyo dawlad iyo cid ka qabata midna uu koroneelku uu indhalay gurigiisa fadhiya maalin walba uu hadla cidina ma eegto dadna waxa ugu xiga Maxamuud Xaashigan jooga madaxtooyada ayaa dad ugu xiga horta Muuse waa ka waa ninka beerta Ismaan Dacas haysta weeyaan ee ninkaas laha la siiyay in anagu maraga ugu hayn Muuse wuxuu haystaa wuxuu ku haystaa oo maxkamadaha kaga jiroon cidna ka qabanaynin ilma Cabdillaahi jiray waa la garanayaa waa guuleed hotel dabadiisa dhulkaasi anagoo hawlaha guudan inuu yaro junior oo shaqeeyo ayaa Cabdillaahi jiray bedel loo siiyay beertoodii la siiyay isaga ku haysta Muuse waa adeerkii dajiyay ilaa maanta waa la ogyahay aniga cid uu yeedhay baan wasiir dakhili baan yiraahdo ugu marxaati furna warqadii markan uu qoray la waan garanay aniga inaad Ismaan qaata leeyahay cid walba naanays bay leedahay xoog iyo quwad iyo dagaal baa awoogi lagu bixiyo 27 jir buu ku dhintay isaguna Muuse Biix Cabdi Dameer weeyaan nin waliba naanays buu leeyahay oo ku abtirsada hadii taa laga soo gudbo soo laba maaha ta saddexaad saldhigan koodbur markii yar dhaafteed bar u socod galbeed u socoto وديك مدك تقابتو جيرش كدكتي ودقي جودر والله وذا قرمية أنت الله يرحمه إنه كصدقوا عيدلوس أيال هاون السيما وكد دقي حوق كدقاتي سوت بقول نور وهضبة ونكد يدين عليه إسكجس وجود بورتن كلا تحن اللي بدأ تلابي إنه تكته أنا قرر كي عبد الله سعيد بالله كوي دجنا أيو إلى ما أنت كوه يستولي وبيرتيد مستقبل يجيب بيرسجي أبي تونر جيسو كل يشل بيرهدت كي ديجان كارنا قاعد يأكل حين إلى ما أنت أيوة كويس تيجانته وقويجا هلكن الله دقاق وجد دبلي والله أبتياشي يقول كويس ويتشوف أنا ما قلت هلك حبك الشيء معي أبارتو وحكويس تقول له عبد الله السعدة يقول الري أحمد متعد أنا يقول يسقى هيسن موسى يسقى عبتي سفرية متشكتو وأقول كوبرا هدي الله صون غضب لك الدولة ده أي لا هاي كاسوا ضدك وحوك كقطع موسى مدعوين من وكدونا يوم فريا وحوي يقول الشعب كنت جاي هاي سنة أنا بقول الشعب كنت جاي هو يمكن اللي يقول مدعوينها سيارة وكاك هذا معي قول كوقوي كيس جيد أبي جواب الحياة لين نادر كيف دشي وحلاله الشرع اللي متشتوان ودير مدعوينها أنا بحياة بالعرس وصار ورقد مدعوين عيد كسي قول كوجرجيس كونفورت كأ يسجد هذا وصل الشعب كيوم وحلاله وحشرعية وهيستون كهين شرعية دي ربنا الدولة دوسة وكسم يستون شرع هين معان الله يصدق إلا دول الدولة دوسة أي شرع كسم يصدق
laakiin waa maxay shacabku ka duwanay dawladda dhaxal ku shaqale shacabka ayaa bixiya hadday bixin tahay iyo hadii la iibinayo waa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha ku reeciga alla muusinin madaxweynaha ku xigeen reeyalana muusinin siiraayana muusinin inta imika uu yahay buu been ku seestay oo sharciyo oon jirin oo dhaban ku seestay waxaan xastaanoo daakhili ah oo ninkii wasiirka awlaad buu ka aan jiray dhintay Allah yarxamo ii sheeg magaciisa maya kii uu ka dambeeyay ee joog Ismaan Qaasim ayuu waraqaha u keenay ana ula hadlay Ismaan Qaasim waxaan ku war naga sii daa wax sharciyad oo uu haysto oo saxi ma jirto way intaas qof un baa bixiya shacabka dhulka ku yaala ama dawladdu way ka iibisaa ama way ka iibisaa dawladdu ama madaxweynaha bixiyo ku siiya wuxuu dadka ku eedayaa hebel gurigii dawladdu iibsaday cidna ma iibsato guriga dawladda qofku markuu ka baxayo wuu ku tabcay waxbuu ka dhasay sida abiib diriyo oo kale had buu iibiyay abiib ninku ka iibina dawladdu ka iibsaday ninna inta guri dawladeed iibiyo dawladdu mulkiyeed sharci mid dooma samayso wala wad ogyo wala yaqaan yaani waa been abuurka oo mikrofoonkan uu meesha soo dhigay oo ka hadlay uu yiri way hadii aan inta uga soo gudbo oo soo sheegay ilaa buurtii kala jeexnay ugu yaraan 20 ama ka badan dacwooyina oo dhul ku saabsan been midna ma sheegayo ayaa musabixi wax maxkamadda uga furay wax dadku haysta waana ninka madaxweynaha ku doonaya way hadii inta laga soo gudbo oo inuu soo dhaafno wuxuu ninka mikrofoonka oo hayiri Ismaaciil feelkiisu haya war anaga feelka yaga ma haya anaga feelkiisa hayna muusana feel halkan kuma leh maanta jawaabtayda badin maayo waxa weeyaan waxaan sheegay inuu kuleeyay feelkiisu haya anagu waxaanu qabanay xafladan ku soo biireynay xisbigan wadani maalintii waxaanu qabanay khamiistii baa la qabtay arbacadii isagoo gaariga lagu sido oo waliba inankii waday uu ku wada aan garanayo oo aad garanaysaan uu yahay ka yaran adeerka oo haysto sagal jad Abdi Yusuf ayaa telefoon ii soo diray wuxuu adeer waan ku doonaynaa adeer maxaad iga doonaysaa adeer arrin muhiim ku doonaynaa adeer sootaynu dhamaysanay wuxuu adeer waataynu dhamaysano wadan inaad gashaan uu baan kula gartay laakiin arrin aan taa qodaysiinin baan ku doonaya waayahay baan suuqan joogay waan ku celiyo waan shaki adeer miicdu kula socota isagu sidaa waxaan wuxuu dhimay cidna laba socoto ciyaalkan sidoo dharkiisu ku soo taliyo gurigii baan soo taagay waa arbacadii shantii iyo bartii galabnimo muuso xagga dambe lagu sidaa yimid waxa leeyna gaabadh fenigan mikrofoonka oo le feelkaagu hayaayo maana feelkiisa iyo mise isaga haya markuu arbacadii markan galay kolkii cid waliba ii taacad weeday isagoo sidii la keenay ee walaalkay oo mujaahid oo la socda kii xabada isaga dhiyay la socday uu naga fur albaabka waan ku doonaynaa ee ma furayo uu naga fur albaabka ee ma furayo kanna lama hadlayo wax hadal naga ma dhaxeeyaan walaalkay yiri war naga fur anaga ku wada doonaynay idin kama furayo baan kana kama furayo kala socday awowgiiba ismaaha waa ragii aan hore u wada qanciyeen u sheegay nin walba fasaxay buu ahaa makaasa anaga feelka haya makaasa oran kara ayaa ina gaabadh anaga oran kara intuu sheego ku oran kara waa rag oo laga maarmay nagamu maarmin ilaa maanta ooya Soomaaliland oo dhibna waqti wax iska celiyo kulmiyo joogay anaguna wadan baan joognay waxa saxaafadayda idinku xigi doontaa oo kol haduu bilaabay furmaysan leh soo daa cidda haysato iyo waxa dhiid agtaada joogta cid walba bal ka soo hadashay qof u damqanayana nin siyaasadda u bilslaada baan ahay nin adiga ku garanaya baan ahay ninkii Maxamed Xaaji Ibrahim cigaal sheegay baa tay intuu wasiirka waligii marbu xil dalkan ka qabtay xilkii wixii uu ka qaadiyay wuxuu geystana waad garanaysaa taariikhdu waa wax qoran Soomaaliland marbu wasiir dakhli noqdo markii wixii dhacay iyo wixii uu geystay intaba waad garanaysaa saxaafadaha dambe ku sheegi doona barigi Ibrahim Xaaji cigaal wuxuu wali waan xasuustaayo wuxuu waa mashruuc intuu yaabay sidoo waday ilaa waxa islaayeen ku dul kacsadeen haddana wuxuu yiri kolku eriyay waa rafadkay rafanaysay buu waa rafadkay Maxamed Xaaji Ibrahim cigaal baa Allah naxariistay marka waxaan leeyahay taariikhdaadu way qorantay buugaaga aday Soomaaliland haysta anu dagarna maan galin diilna maan galin kitaab cadoonan cidna godab ka galin baan haysta wuxuu waa faqash haddana imka Muuse u tago waxaan noqon lahaa janraarada ka ugu sareeyay mujaahidka kolka uu tago weydin buu dadku ku oranaya waa faqashnimadu waxay ahayd askari ama ku soo diray waa nin ciidanka ahaa iyo nin dawladda Maxamed Siyaad Barre u adeegayay ama sirdoon ugu adeego ama ku dagaalamaya hawl noqdo ayuu aanu nin ciidan ma nin dhalinyaro daadiinana oo idinka yar baanaha anu waqtiga oo isagu ka waramayo
oo dhowr iyo labaatan jira oo soddonka u buuxsamin ayaan anigu ah oo shaqaale dawladeed inuu yiro big grade dawladda hoose ka shaqeeya ummadoo dhan way garanaysaa markuu waxaan ka waran galmid quraha soo joojiyo leeyahay Ismaaciil taasoo xidhay iyo dhibtaasuu geystay taasoo weligeed lama helayo Ismaaciil kaasoo wax taray kaasoo qabtay kaasoo dhultiimeen san isagoo kabtan oo qaawan inta halkan yimid dhulka u siinayay isagoo weligeed dhul ku yeelan ayuun bay ahayd maxaan markan siinayay odagan shaniista jirka adeerka nooyi muxuu ahaa markuu siinayo bariyay la siinayo dhulka siinaynay muxuu samaanta noqday waxaan saxaafadeeda ku sheegi doonaa موسى مدحوينها دونيا وقمة وصحافة يدي ورتح بتوسعتها موسى محو أهان كذا مركي هراء دولة دي سياد برا محو كدم نقضي تهون شيء يقرن معي ولا جايب عن وسيلة محقر المي مجاهد بون نقضي مجاهد نمدي محو كدم بي وكدم بيسي غور مسلم وكدم بيسي وتهيد تمام كل شيء دونا وغور مسلم نقضي موسى محو يقعنا كونفرتا بريء السناج صحافة دم كل شيء دونا موسى محو يقانا قبل كالأسعان ودي يدك الدقن صحافة دم كل شيء دونا موسى محو يقانا قبل كأوضل هي قبل كسلم صحافة دونا كل شيء وحن كل شيء أنت هالجن كيل لقى صون قضي يلا سود اللي لأن يرب ضنوا دادين أنا على تون قرنين ده ونفهم سرينا وحي هاي مركا وين الله شجع قبك مدحوينه ومدن كدونية كوي هاي يوحي وين نفهم سيا الله شجع إما كأوضل بسم موسى وعنكي سلطان كي سبر أول بابيين أنا كذي أو كلام صارته على مدى تاجن شلوا كشري قضايا الباب قبل كشريين وسوي منصور يشري أنتوا العقد القيمين والله هاي نتاجن سلطان كي جوده هروي يدالي وكنت ما كشرت لي شو كنت لي مركورنا وكنت لي وحنا هنقول أنا نبي يلو ورني مركي دم وحي كواوي يرو وابينا وحيري وان كاب قاعد بحلكي وأنا متكلم صاري كي دمبو صاري باب برعايم كوجو رياضنا حلو لك هذه بالي بل بعتذا هي أفدا إيجا موسى وقفوا لو بهي ضد كان ضل كان إن لقى قبته ومد السومال لأن نحن وحن إيجا بانولين هاي ومد السومال لأن وحن لين عدكين وضن السيا بانولين ومد السومال لأن وحن لين ورنين ضد كيسقوا ذكره إلى صدق أن قبل ذا وش يجي ضد كوسميين أو نحل إيجا بيالد إيجا حسنين وإيجا قطة عاني طامنين أو طلع إيجا ككع عدكين إلى بنت كل أشياء سنين waxaad siinaan nin kale tolaya Soomaaliland Soomaaliland inta idhaman isu keenaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh